kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka. qodobada barnaamijka aan idinkugu hayo isla markaana aad uga bogan doontaan waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay qaar kamid ah dhalinyarada tababarka loogu qaaday dalka Eritrea oo dalka dib loogu soo celiyay durbana bixiyo xogo ku saabsan halkii ay ku dambeeyeen dhalinyarada kale ee tababarka loo geeyay dalkaasi. Ra'iisul Wasaare Roble oo guul lama filaan ah ka gaaray xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka iyo dardargelinta doorashada oo si wadajir ah uga bilaabatay maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. xagee buu ku dambeeyay khilaafkii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Djibouti? warbixin ayaan idinkaga haynaa. qodobadaas iyo kuwa kale oo intaas ka faahfaahsan ayaan daawadayaal barnaamijka idinkugu hayaa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe daawadaha naga ilaabin gambalelkana taaba si aad u noqotid daawadaha ugu horeeya ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelino. waad ku mahadsantihiin daawashada wararka iyo sida markasta aad inula socotaan aynu ku bilowno wararkeena. waa 14 bisha 12 Diseembar 2021. qaybtii ugu horeysay oo kamid ah ciidanka tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ayaa goor dhaweeto waxa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. diyaarad military oo ciidankan ka soo qaaday dhanka dalka Eritrea ayaa ka soo dejisay garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaana la sheegay in tirsigoodu uu gaaray 200 oo askari. ciidamadan tababarka hore loogu qaaday dalka Eritrea ayaa waxa ka soo baxay warar kala duwan iyada oo horey xubnaha mucaaradku ay u shaaciyeen in tirsiga ciidankaasi uu dhaxeeyay 4800 ilaa 5000 oo askari tababarna loo geeyay dalka Eritrea. dowladda Soomaaliya oo aan wax faahfaahin ah ka bixin ciidankaasi tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ayaa qaybtoodii ugu horeysay dib loogu soo celiyay dalka waxaana ciidamadan lagu wareejiyay saanada ciidan ay isticmaalayaan oo dhankeeda laga keenay dhanka dalka Turkiga oo tababarada iyo qalabaynta ciidanka ka taageera dowladda Soomaaliya. waxaa dib u soo celinta ciidamadan ay ku soo aadaysaa iyada oo bilihii la soo dhaafay ay soo baxayeen xogo sheegaya in ciidanka Soomaalida ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ay ka qayb galeen dagaalka u dhaxeeya Itoobiya iyo xoogga TPLF-ta. hooyooyin iyo aabayaal badan ayaana baaqi isdaba joog ah u diray bilihii la soo dhaafay dowladda Soomaaliya si ugu yaraan ay xog uga bixiso dhalinyaradaasi tababarka loo qaaday halkii ay ku dambeeyeen nolol iyo geeri. hase ahaatee dowladda federaalka ayaan si rasmi ah uga hadlin walow qaar ka mid ah wasiirada dalka siiba wasiirka warfaafinta uu dhowr mar ku celceliyay in ciidankaasi ay nabad qabaan dalkana ay dib ugu soo laaban doonaan waqtigii loo qorsheeyay. inkastoo mucaaradka intooda badan ay markaasi kicinayeen hooyooyinka. qaybaha hore ee barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ayaa daawanaysaan. markana warqad goor dhaweed ay soo saareen guddiga maamulka doorashada kuraasta Banaadiriga ayaa lagu shaaciyay qabashada 5 kursi oo ka mid ah golaha shacabka doorashadooda. warqada qoraalka ay soo saareen guddiga ayaa lagu yiri ku socoto guddiga hirgelinta doorashada heer federaal og guddiga xalinta khilaafaadka og xafiiska ra'iisul wasaaraha ujeedka shaacinta kuraasta doorashada aqalka hoose ee Banaadiriga 2021. guddiga hirgelinta doorashada gobolka Banaadir oo fulinaya waajibaadka qaran iyo heshiisyadii madasha wadatashiga qaranka wuxuu guddigan halkan ku soo gudbinayaa qabashada doorashada 5 kursi ee ku aadan kuraasta beelaha Banaadiriga. lambarada kuraastan waxay kala yihiin hob 105 hob 265 hob 266 hob 34 iyo hob 84. jadwalka kuraasta lagu qabanayo waan soo gudbin doonaa ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee gobolada aan rahdee Banaadiriga ee uu ku saxiixan yahay gudoomiyaha maamulka doorashada gobolka Banaadir ama Banaadiriga Marwe Sacdiya Aweys Cali Boolay. dhanka kale guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada ka imaanaya gobolada waqooyi ayaa bilaabay diiwaangelinta ergada soo xulaysa kuraasta xildhibaanada ee Somaliland ka imaanaya. ilaa iyo 101 ergo ayaa loo diiwaangeliyay kursiga hob 262 oo ay hadda ku fadhiso Fawsiya Xaaji Aadan oo ah sidoo kale musharax madaxweyne si weyn u dhaliisha dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. horey uma jirin kuraasta golaha shacabka ee la doortay ergala diiwaangeliyay balse cabasho ka timid mucaaradka iyo musharaxiinta kuraasta qaarkood ayaa keentay in la diiwaangeliyo ergada wax dooranaysa waxaana ay ka mid tahay tan hanaanka lagu saxayo qaladaadka doorashooyinka ka jira.
guddiga maamulka doorashada gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa waxaa la filayaa in ay sii wadaan diiwaangelinta musharaxiintii iyo ergada wax dooranaysa iyaga oo soo gabagabeyn doona 16 bishan aynu ku guda jirnay ee December 2021 si kastaba tallaabadan ay qaadeen guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada ka imaanaya Somaliland waxay tahay mid wax badan ka bedelaysa hanaanka doorashada ee mucaaradku ay sheegeen in boobka uu hariyay waxaana doorashooyinkii hore dhacday in shakhsiyaad aan la aqoonsan xitaa ay u tartamaan qaar ka mid ah kuraasta xildhibaanada aqalka hoose Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble guddiga doorashooyinka kana xalinta khilaafaadka iyo guddiyada doorashooyinka maamul goboleedyada ay isla qaateen in la dedejiyo doorashooyinka isla markaasina la ilaaliyo hufnaantooda iyo kalsoonida lagu qabi karo waxaana isla garteen in kalsoonida lagu kasban karo in la diiwaangeliyo ergada soo dooranaysa kursi kasta oo ah 101 marka laga reebo kuwa ka imaanaya gobolada waqooyi oo kuraastooda erga wadaag ay yihiin barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ayaad la socotaan markana wasiirka wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Xasan oo ka qayb galaya madasha aragti wadaaga arrimaha geeska Afrika ee uu soo qaban qaabiyay macadka cilmi baarista Heritage ayaa soo hadal qaaday xiriirka Soomaaliya iyo Djibouti oo dhawaan khilaaf uu soo kala dhaxgalay Jamaal Maxamed ayaa marka hore meesha ka saaray in haatan khilaaf uu ka dhaxeeyo labada dawladood ee walaalaha ee deriska ah waxa uu qiray in xilligan uusan jirin wax khilaaf ah wasiirka ayaa xusay inay jiraan dulduleelo yar balse labada dawladood ay ka wada hadlayaan qaab diblomaasiyadeed ay u wajahayaan sidii khilaafaadkaasi yaryar loo soo afjari lahaa sidoo kale wasiir Jamaal oo hadalkiisa sii bata ayaa xusay in Djibouti ay abaal weyn ku leedahay Soomaaliya isla mar ahaantaana ay door ku leedahay dawlad dhiska Soomaaliya Djibouti dad walaalo ah ayaan nahay dawladii carta ayaa halkan lagu dhisay maantana waa annaga halkan ka soo qayb galnay waana soconaya xiriirkeena ayuu yiri wasiirka khilaafka soo kala dhaxgalay Djibouti iyo Soomaaliya ayaa banaanka u soo shacbaxay horaantii sanadkan ka gadaal markii dawladda Soomaaliya ay Djibouti ku eedeysay inay kala safatay dawladda Kenya oo ay isku qabteen arrimaha gobolka Gedo oo xuduud Soomaaliya ay kala leedahay Kenya qeybihii dambe ee barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ayaa daawadayaal la socota meel kastoo aad joogtaan xilli wanaagsan ayaan khiyaaray idin leenahay markana al-shabaab ayaa weerar waxay ku qaadeen ciidanka dawladda Kenya oo ku sugnaa tuulo lagu magacaabo Konton oo hoos tagta deegaanka Qorof Xaraar ee magaalada Wajeer waxaana halkaasi ay sheegeen in khasaare ay ku gaarsiiyeen ciidanka weerarka ay ku qaadeen war ay ku soo daabaceen baraha internetka wararkooda ay ku faafiyaan shabaab waxay ku sheegeen in 30 ka mid ah ciidanka dawladda Kenya ay ku dileen weerarkaasi waxa sidoo kale ay xuseen inay la wareegeen tuulada ay ku soo qaadeen weerarka oo ay ku sugnaayeen ciidanka dawladda Kenya dhanka kale dawladda Kenya ayaa war ka soo saartay weerarkan shabaab ay qaadeen inay ku ekeeyeen weerarkan shabaab ay sheegeen inay ku ekeeyeen tuulada Konton booliiska dalka Kenya ayaa sheegay inay fashiliyeen weerar koox ka tirsan shabaab ay la damacsanayeen inay ka fuliyaan masaajid ku yaala deegaanka Qorof Xaraar ee dhacaduleedka magaalada Wajeer 6 qof oo hubeysan ayaa gaaray masjid ku yaala tuulada Konton waxay doonayeen inay afduubtaan dadka masjidka ku tukanayay sida laga soo xigtay booliiska taliyaha booliiska ismaamulka Wajeer ayaa xaqiijiyay dhacdadani isla markaana sheegay in kooxda ay weerar ku soo qaadeen masjidka balse laamaha ammaanka ay ka hortageen weerarkaasi sida uu hadalka u dhigay wuxuu beeniyay wararka ka soo baxaya shabaab ay sheegaya in ciidamo badan oo ka tirsan dawladda Kenya weerarkaasi shabaab ay ku dileen intaasi ayaan daawadayaal ku soo afmeeraya barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka aad halkan kala socoteen fadlan daawade hadii aad nagu cusub tahay subscribe tanaga ilaabin gambaleel kana taabo si aad noqotid daawadaha ugu horeeyo ee helo wararka iyo warbixinadan halkan soo gelin oo aad ku mahadsantihiin sida markasta aad nala socotaan nabadi